mid ka mid ah habeelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan xeryaha qaxoontiga ee Dadaab ayaa waxa ay yeesheen kulan ay kaga arrinsanayeen masiirkooda siyaasadeed ee mustaqbalka. Bashiir Gaxnuug ayaa nooga soo diray xeryaha qaxoontiga Dadaab isla isaga ayaana inoo faahfaahinay. waxgarad ka dhalinta iyo aqoon-yahanka beesha Kaboole ee xeryaha Dadaab ayaa yeeshay kulan ay kaga arrinsanayeen masiirka siyaasadeed ee mustaqbalkooda wuxuuna kulankani daba socday sida la sheegay shirweyne beeshaasi ay ku yeesheen xarunta maamulka Hirshabeelle ee Jowhar kaasoo sida ay sheegeen wadatashi dheer kadib la isla fahmay in midnimada beeshu tahay muqaddis lama taabtaana waxaana waxgaradkii madasha ka hadlay bogaadiyeen isku xidhnaanshaha iyo sidoo kale xalinta xurgufo yaryar oo sida ay sheegeen muddaba u dhaxeeyay beesha Kaboole. anigu waxaan ahay Maxamuud Daasho Qaasim waxaan ku noolahay Kenya Dadaab qaxootiga jooga ayaan ka mid ahay kadibna waxaan halkaan xafladan u qabanay in aan ku taageerno shir lagu qabtay ama lagu go'aamiyay kaasoo ah in khilaafaad dhexdooda ku jiray la dhameeyay beesha Kaboole dhexdooda ayaa mataqaanaa khilaafaad ku jiray khilaafkaasna waa la dhameeyay waxaan lagu dhameeyay si farxad leh oo wanaagsan ayaa lagu dhameeyay magacaygu waa Jibriil Abuukar Xaaji Mahdi oo ka soo jeedo degmada Jowhar Hirshabeelle gaar ahaan Jowhar marka waxa idin sheegayaa arta tilmaamaha waxaaga maadaama aad sameyseen isku imaatin iyo wada tashi iyo wanaag aad sameyseen aad ayaan idinku taageersanahay sidii aad isku xiranteen sidii aad u habeyseen maadaama aad sidaas sameyseen waxaan sheegaa hadduu Ilaahay yiraahdo beesha Kaboole sidaad u tihiin waa inaad xaqiina tii hore waa ni gaftay tan inaad soo dhacsataan maxaa yeelay tii hore tafaraaruqay niga fakatay laakiin tan waxaan aad idinku taageeraynaa anagoo joogto qurba joogta Kenya aad joogto aan nahay anaga qurba joogta naga sii sareyso oo joogta Mareykan iyo dhulkaas kalena ayagana waana soo wakiishteen marka waxaan baaq idinku direynaa idinku sheegaynaa idinku taageersanahay maadaama aan nahay anaga qurba joogta Kenya aan nahay inaad sidaas hadda isku xiranteen aad xaqiina u soo dhacsataan baarlamaan ha noqdo wasiir ha noqdo yaa xildhibaan ha noqdo waa inaan xaqeena anaga helnaay hadduu Ilaahay halkan waxaan ka salaamayaa beesha Kaboole waxaan dawladda Soomaaliyeed ka codsanayaa golaha sare iyo golaha dhexe iyo madaxweynaha waxaan ka codsanayaa in xaqiisana hore aan weyne inaan hanno xuquuqdayna kaalinta aan ka lahayn Soomaaliya mowqif meesha aan anigoo ah Saalax Qaasin waxaan leeyahay dhammaan odayaasha beesha Kaboole xilka aad u dadka u wada haysiin waa xil aad u wanaagsan odayaasheen waxaan ku amaanayaa sidii isugu imaadeen oo ugu hadleen mustaqbalkoodii marka waxaan leeyahay wax badan ayaa noogu maqan maamulka Hirshabeelle waxaan leeyahay hore u socda wanaaga aad sameyseen aad baan ugu faraxsanahay hadii aan nahay qurbi joogta ku nool dalkan Kenya dhammaadkii kulankan ayaa waxaa bayaankii ka soo baxay madasha ka akhriyay Saalax Sheekh Mahdi Muuse oo ah gudoomiyaha qurba joogta jaaliyadda beesha Kaboole waxaan rabaa halkan inaan ka sheego ama ka akhriyo qoraal ay soo saareen qurba joogta walaalaha Kaboole ee ku sugan daafaha caalamka qoraalkaas oo ah mid lagu taageerayo shirweynihii lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar xarun goboleedka Hirshabeelle qurba joogta iyo odayaasha oo baryahan balaha kulamo isla markaana ka dhacayay aaladda afgaan araga Zoom-ka iyo WhatsApp-ka kala qayb qaadanaynay ayaa waxay go'aansadeen inay taageeraan waxyaabihii ka soo baxay shirkaas iyadoo beesha dhowr mar waxa waaye kala aragti duuneed isla markaana la isku keenay aragtidiina la mideeyay oo haddana cadeynaya in markaasi hal meel ay ka soo wada jeedaan qodobada shir qurba joogta ay soo saartayna waxay u dhigan tahay sida tan waxaan si buuxda halkan uga taageersanahay go'aankii ka soo baxay shirweynihii guud ee beesha lagu soo gabagabeeyay 19 bishan magaalada Jowhar xarun goboleedka Hirshabeelle sidoo kale waxaan si buuxda ula shaqeyn doonaa dhammaan ugaaska iyo nabadoonka guud ee beesha ugaas Ibraahim Umar Yuusuf iyo nabadoon Ciise Maxamuud Ismaaciil oo ay beesha isku raacday inay
si buuxda ula shaqeeyaan isla markaana ay yihiin cidda matalileed ama marjaca u ah beesha Kaboole isla markaana aysan jiri doonin cid kale markaasi ugaas ama sheegan karta inay tahay ugaaska beesha Kaboole ama nabadoonka guud ee beesha Kaboole iyadoo aan ognahay nabadoon inay iska badan yihiin laakiin nabadoonka guud inuu noqdo Ciise Maxamuud Ismaaciil in laga shaqeeyo midnimada beesha oo ah mid markaas lagama maarmaan u ah si loo helo xuquuqda iyo wadajirka iyo xuquuqda ka maqan beesha haday tahay mid federaal iyo mid gobol intaba si markaas loo adkeeyo waxyaalaha hadda dawladda waxyaalaha hadda ay beeshu haysato isla markaana la raadiyo xuquuqaha ka maqan hadii ay noqon lahayd midii guud ee ah tan federaal oo xildhibaan aan ku lahaan jirnay haatan waxa waan ka nahay xildhibaan la'aan banaanka aan ka taagannahay khilaafka beesha soo kala dhaxgalay awgeed doorashooyinkii hore laakiin haatan beesha ay u taagan tahay xubinteeda inay dib u hesho isla markaana ay ka mid noqoto waxaan sidoo kale baaq u direynaa dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaasha labada aqal kan federaalka kan aqalka sare iyo baarlamaanka guud ee hoose waxaan leenahay beesha Kaboole waxay lahayd xubno ku matala baarlamaanka imikana ay banaanka ay ka tahay laakiin hadda waxaan cadeynaynaa ama ugu baaqaynaa inay ilgaar ay ku fiiriyaan beesha sidii ay u heli lahayd xuquuqdeeda waxaan xaqiijinaynaa inuusan jirin wax beesha ku matala labadaas aqal haddii tahay tan federaalka iyo midda kaleba waxaa sidoo kale beesha Kaboole ay tahay beel magac iyo miisaanba ku leh Soomaali weyn waana beel soo jireen ah degta gobolka Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe intaba way degtaa beesha Kaboole sidoo kale waxa lagama maarmaan ah ugaaska beesha iyo nabadoonka beesha inay u kacaan sidii u raadinayaan dhammaan xuquuqaha kaga maqan maamulada federaal ee ka kooban yahay dalka oo dhan isla markaana ay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka beesha Kaboole iyo tan Soomaaliyeed intaba sidoo kale qurba joogta beesha waxaan idin la garab taagan tahay hiil iyo hoo intaba sidii hore loogu wadi lahaa midnimada iyo wadajirka iyo badbaadinta samata bixinta ummadda biyaha sanad walba ku dhex jirta sidii loo badbaadin lahaa ama xuquuqdooda loo soo dhicin lahaa qurba joogta sidoo kale waxay mahad gaar ah u diraysaa dhammaan odayaashii dhaqanka isku howlay inay markaasi ay ajiibaan isla markaana ay ka shaqeeyaan danaha iyo midnimada beesha isla markaana waxa way tuulooyin fogfog iyo meelo fogfog isaga yimid muddo 2 toddobaad iyo ka badan Jowhar ku sugnaa sidii markaasi ay isugu keeni lahaayeen ama u xalin lahaayeen xurgufaha yar yar ee soo kala dhaxgalay dhanka dhaqanka waana ugu mahad celinaa sidii markaas ay ugu guuleysteen inay arintaas ay dhameeyaan Bashiir Gaxnuug RTN xiriyaha Dhadhaab